وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي كان قبيل كديدالي بالمدى دونالي كان قبيل كديدالي بدني مدى دونالي كان ديدي الهوشتاري كان لعبك دور سنو وعكستا ودقاتو وديك شري دحدي سالي كان ديدي الهوشتاري كان لعبك دور سنو وعكستا ودقاتو وديك شري دحدي سالي وسؤال دويني ذلك يا إسكالي وسؤال دويني ذلك يا إسكالي كان دجي يقونتو تدكو كأفلحانو دابع تعليم تاريخ درجة إيا بيرا كان ينبضو تبكو دقالها تركنا يالي دغلا تركنا يالي كان دجي يقونتو تدكو كأفلحانو دابع تعليم تالي درجة إيا بيرا كان ينبضو تبكو تركنا يالي دغلا تركنا يالي تدونا داوي يا عذركو دبردو يا عذركاني دنيرتا وديقا هذه يا ماتنا إيمانكي صدقالي عافمات تدونا داوي يا عذركو دبردو يا عذركاني دنيرتا وديقا هذه يا ماتنا إيمانكي صدقالي وسؤال داويني ذلك يا إسكالي بسم الله الرحمن الرحيم لمان كسوق قلياشا برنامج كان مانتي odayaasha dhaqanka salaadiinta dhalinyarada haweenka dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ka soo qayb gashay maanta xafladdan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka waxaan idinku salaamayaa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal waad ku mahadsantihiin sida sharafta leh ee aad uga soo qayb gasheen oo aad u ajiibteen dalabkii aan idin dalbay waan idinkaga mahad celinayaa idinkoo hawlo badan leh inaad itixgelisaan dalabkayga marka koowaad inta aanan gelin mawduuca halkan maanta aan idinkugu yeeray
waxaan rabaa inaan ka hadlo oo ka tacsiyeeyo baaq nabadeedna aan halkan ka diro dhacdadii ka dhacday deegaanada gobolka mudug barigiisa gaar ahaan degmada afbarwaaqo iyo tawfiiq halkaasoo ay ka dhacday dhibaato xildhibaan cabdikariim khaliif cabdi gudoomiyaha gobolka wasiirkii hore cabdi odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada iyo haweenka baha saxaafadda dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa ka bacdi waxoogaa yaroo qaladaha dhacay xildhibaanka gadaalkiisa in la hadlo ma ahayn waxay ahayd annaguna xildhibaan ku soo dhaweyno wiilashii xiriirka samaynayay baa xoogaa qalad yar baa dhacay marka intaas hal la ogaado aad baan uga cudur daaranaynaa xildhibaanka gadaalkiisa inaan war sheegno warkaas wuxuu ku fiicnaa annagoon ka horeyno laakiin way dhacday waxaan ku leenahay xildhibaan ku soo dhawow degaankaagii waa degan doorashadii maaragtay aad constituency-gaaga wey aad xaqa u lahayd inaad dareenkaaga la wadaagtid aragtidana bini aadamku waa ku kala leexsan yahay oo we are not on the same page wax walba isku si uma aragno mukhtalifo wey laakiin in la tashado oo dadku taasay warbaydhaba hamoodinina mudiga galguud waxaa jooga dad soo jeeda oo og xaquuqdooda iyo meesha laga soo galayo dowladda federaalka intaasaan leehay ha u qaadanina mudugiyo galguud baydhaba hamoodinina taas waa qodobka labaad reer galmudug waxaan leeyahay 11 bere oo reer galmudug waxaan rabnaa xaquuq sinan oo aan indheeri lahayn inaan wax ku qaybsano dowladdu faraha kala baxdo ma indhaliin horay baan qatar u soo marray nalama qatali karo dowladdu faraha kala baxda shaqada galmudug sharcigu waxa weeye maamulkooda u yaal inay ayaku wax dhistaan inay wax maamushaan dowladduna ay goobjooga ay ka ahaato oo wixii xogaa ka qaldaba ay toosiso hadda ayadii baa dharka u dhigatay waa inqilaab waa u jeednaa ammaani mayno inqilaabka naga qaado 11 beerood si islaamnimo iyo si dowladnimo wax u qaybsanaynaa baydhaba yaa la moodi yaa baydhaba la moodi anu hadalkayga intaas ku soo dhaweey shaqada sheemaha oo talaxmadu hore noo haysatay marka waxa weeye in la kala saaro weeye shirkaas gustamareeb ka socda annagu haddaan nahay beesha saacada halkan degta ma garanayo waxaan ku taageero ma garanayo xuquuqdeedii gobol baanan haysan waa madaxweyne hobyo tegey waa la sheegay hobyo waxaa ka dambeysay jidka hobyood wixii u ballan qaaday oo lacagtii UN ku bixiyey caalamku bixiyey oo malinta doolarahay oo la qaybsaday halkii milyan oo ballan qaaday weli ma hayna annagu waxaan isku hayaa waxaan u dhiibaynaa gob u dhiiba iyo u dhiibmayno gob waa nimankii caanateelka iyo rida iyo mataqaana waqti jeebkeeda ku bilaabay jidkaas yahay cid tagaa roon oo maanta waxaan kugu dhiibanaa ma garanayo marka waxa weeye siyaasaddiisa naga dhex yaacin khilaafkeenna aan qarsanno waxaa loo baahan yahay midnimada aan ku goosanno xildhibaankuna qadaaldaan buu noo keenay waana wax jiroo dhaba nin qarin karana ma jiro haddii khayra beriyu halkaa uu dhowr qof dhawarka aad baan ugu faraxsanahay sida dareen kale oo miisaan kale oo maxaan ku dhahdaa halkan doodii ka dhacday runtii dadku haddii aan aragtida la isweydaarsan oo aan la doodin oo aan maxaan ku dhahdaa wixii jira laga niqaashin wax badan baa naga hoos baxaya waan idinkaga mahad celinayaa ajiibkii aad soo ajiibteen hadalladii hadda halkan ka dhacay oo halkan la isweydaarsaday kulligood muhiim bay ahaayeen aniga dowladda dhexe anaa ka tirsanaa wasiirkii idinku matelaya baan ahaa horta hadallada anugu halkan aan ka leeyahay hadalla aan wax ku raadinahayo oo anaaba midkii aan hayay dan guud darteed uga tegey xilkii anugu aan hayay maslaxaddiinna idinka iyo deegaankan darteed baan uga tegey inaad idinku aad mataqaanaa horumar samaysaan aniga sharaf bay ii tahay inaan dad macnale oo sida bini aadamku u nool yahay u nool inaan matalo halkan
waxyaabaha la taaban karo oo hadda la oran karo ballanka baxyada meelaha ka dhacay waxaa ka mid ah horta teeramka dawladdu waa 4 sano 4 sano halka sano